السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمان أنت كنت حن بيج كان waxaan sheegayaa in aan bilownay barashada sidee darawal taxi loo noqdaa. Hordhac ayaan hore ugu soo hadlay, haddana waxaan bilaabaynaa taxanihii. Taxi Sweden waa maxay? casharkan waa kii ugu horeeyay ee taxanaha barashada Taxi Sweden. haddii aad rabto inaad noqoto taxi driver ama hadda bilow tahay, casharadan waxaan kugu sharxi doonaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato, laga bilaabo shuruudaha ilaa aad hesho taxi forare looga tamaqoon, kaasoo loo yaqaano kan kuu ogolaanaya inaad taxi wadid. aniga waxaan leeyahay 10 sano waayo aragnimo ah oo taxi wadis ah, weliba magaalada Stockholm. waxaan kula wadaagi doonaa caqabadaha iyo faa'iidooyinka uu leeyahay, iyadoo weliba ay u badan tahay faa'iidooyinka uu leeyahay. maanta waxaan ka hadlayaa Taxi Sweden waa maxay, maxaa laga filanayaa darawalka, faa'iidooyinka shaqada, caqabadaha shaqada, waxa qofka cusub u baahan yahay inuu ogaado. Taxi Sweden oo Stockholm ku dhex wado ama magaalooyinka kale waa maxay horta sidiisa? Taxi Sweden waa adeeg gaadiid oo lacag laga qaado rakaabka, qaarkoodna ay dawladdu bixiso. darawalka taxiga shaqadiisu ma aha oo kaliya inuu darawal noqdo, oo darawal baabuurkaas u wado kaliya, waa inuu sidoo kale adeeg wanaagsan siiyaa macaamiisha, kundiyaasha, ilaaliyaa badbaadada rakaabka, yaqaanaa sharciga gaadiidka, maareeyaa xaaladaha adag, waa inuu maareeyaa xaaladaha adag, matalaa shirkadda uu u shaqeeyo. taxi driverka wanaagsan waa qof dadka dareensiiya ammaan iyo kalsooni, iska wad oo kaliya maaha. maxay tahay ama maxay qabtaan taxi driverka Sweden? maalin kasta waxaad qaadaysaa rakaab, geynaysaa meelaha ay rabaan, waxaad isticmaalaysaa GPS iyo navigation, ka shaqaynaya maalintii ama habeenkii, ama habeen ay shaqaynaya ama maalin, doorashadaas adaa iskalaan doontid. la kulmaysaa dadyow kala duwan oo isugu jira kuwa dhib badan, kuwa maxaa la yidhahdaa nadiifa, kuwa lacag ku siinaya yani akhlaaqdaada iyo maxaa la yidhahdaa sida ugu shaqaynaysa darteed, kuwana waa kula dagaalayaan. macaamiishu waxay noqon karaan dalxiisayaal, shaqaale, arday, dad waayeelo ah oo loo yaqaano fashioniste, dad naafa ah, dad safar degdeg ah ku jiro oo ayaga dhanba degdegsan oo stress hayo. faa'iidooyinka shaqada taxiga: kow, jadwal dabacsan oo adiga aan ku dhibaynin, oo jadwalkaada inuu ku dabacsan yahay dhibba aan lahayn. shirkado badan waxay kuu ogolaanayaan inaad doorato saacada aad shaqaynayso, adiga xor u ah, waa lagu ogol yahay. waqti alla waqtigaad soo kaca, waqti baabuur afarta lagaa saaraa, afar afarta lagaa saaraa, markaa aad soo heshid waayo shuruudaha, aad soo buuxisid oo taxi forar laga damaqoonka sida lagu heli doono waa ka sheekayn doonaa. laakiin markaad soo heshid kadib aan ka hadlaynaa, waa arrimaha guud aan ka hadlaynaa. kow, waxaan soo sheegnay jadwal dabacsan. shirkado badan waxay kuu ogolaanayaan inaad doorato saacadaha aad shaqaynayso. labo, dad badan ayaa la kulmaysaa. maalin kasta waxaad la kulmaysaa dad cusub, kii hore laga yaabaa marmar, laakiin inta badan magaalo weyn haddaad ka shaqaynaysid dad cusub maalin walba la kulmay, maalin ilaahay keeno.
saddex magaalada aad kala baranaysaa magaalada waad kala baranaya waxaad si fiican u baranaya wadooyinka iyo xaafadaha iyo weliba tuuneelada meelaha oo is leedahay ama markii hore ka cabsin jirtay si caadi ah ugu dhaxbaxaysaa waxaas oo dhan jidadka waxay leeyihiin jidad tiro badan markaa tunnel ka baxdo kala dhowr xabay kala noqonayaan midkay ka baxay ma ogid waxaas oo dhan waa baranaysaa ha cabsanin tan afraad dakhliga waa kordhisan kartaa aday kugu xiran tahay inaad dakhligaaga hoos ahaado inuu kor ahaado ma aha mid oo taksiyaalka qaar way jiraan kuwa lagula heshiiyo maxaa la yidhahdaa mushaarig laakiin Stockholm boqolkiiba 99 waxay u badan tahay dakhliga inuu adigu kugu xiran yahay percentage lagu shaqeeyaa percentage-kaasi waxaas oo dhan waa ka hadli doonaa haddii la yiraahdo isagana mawduuc kale uga hadlaynaa qofka yaqaana goobaha mashquulka badan saacadaha fiican adeega macaamiisha wuxuu heli karaa dakhli badan waxaad taqaanaa meelaha mashquulka badan ee shaqooyinka laga helo saacadaha la shaqeeyo adeega macaamiisha u qabatid halahaas oo dhan waxaa ku helaysaa lacag fiican ku tacbeen caqabadaha shaqo fudud ma aha caqabadaha shaqo fudud ma aha tagsina wadid shaqo fudud ma aha mararka qaarkood traffic badan oo jaama la kulmaysaa oo yani aad ugu daalaysid macaamiil adagaa jiro kuwa qalafsan oo dhib badanaa jiro cimilada xumaata barafaa ku dhexwadee roobaa ku dhexwadee yani markaasna halista way badan tahay saacado dhaadheer ay shaqaynaysaa qofka isaga xor 8 ilaa 13 saacadood aa leedahay qaar badan waxay shaqeeyaan habeenkii fasaxyada la shaqeynaa sida ciidaha maalmaha ciidaha oo kale ama ciideena muslimka ha ahaato labada ciidood ama ciid kasta maalmaha ciidaha mas'uuliyad sare number 3 mas'uuliyad sare nolosha rakaabka ayaa gacantaada ku jirta waxaa yeelay baabuurka ku soo dhex fariisanayaan noloshaas qofkaas badbaadidiisa laga rabaa qofku habboon shaqadan inaad tahay shaqadan waxay ku habboon tahay qof dulqaad badan dadka si fiican oo la dhaqma jecel wadista baabuurta ilaaliya waqtiga taksiga waxa lagu siinaa jadwal lagu siinaa ama shaqa ku soo dhacayso waxa haystaa waqtiga ku tagi lahayd ina iska maaqdad kafee iska soo qaadatid shidaalan ku shubana aad tiraado waxa soo dhan lama baahna wax kasta waxa la rabaa inaad diyaar u tahay marka oo jadwalka lagu siiyo ama shaqada ku soo dhacdo lagu siiyo lagu raado message ku soo dhaco qalabka aad ku shaqeynayso ku soo dhaco waxa la rabaa direct ina aadid markaas kadib aan kafee doonana markaas kadib aan mas'uul aada no waxa soo soconayso qaladka ugu weyn ee dadka galaanay idin sheegaa marka qaladka ugu weyn ee dadka galaan dad badan waxay u maleeyaan in taksigu yahay baawur wadis kaliya no taas ma aha laakiin xaqiiqdan ku sheegaya xaqiiqda waa taksiga waa isku darka wadista adeega macaamiisha badbaadada sharciyada xalinta dhibaatooyinka qofka fahma shantan arimood ayaa noqda darawal guuleysta koo wadista waaye adeega macaamiisha badbaadada sharciyada xalinta dhibaatooyinka shantaas arimood waaye shan aan ku sheegay ugu dambeyntii casharkan waxaan ku baranay taxi Sweden waxa uu yahay shaqada taxi driverka faa'iidooyinka shaqada caqabadaha shaqada waxa laga filayo darawalka xirfadlaha ah casharka xiga waxaan ku baran doonaa shuruudaha lagu heli karo taxi foorare leegata maqoonka Sweden shalay waxaan ka hadalnay ama videoga hore waxaan ka hadalnay sida lagu helo ama loo diyaariyo ama looga baahan yahay shuruudaha qofka looga baahan yahay koow waa ka soo hadalnay oo waxaan dhahnay waa inuu haystaa shortcut B ama license B gaas waxaan ku sheegay 22 sano marka maadaama aniga aan soo qaatay xilligeygii
oo 2009 2010 meelaha sanadeeda malayna aan laysanka qaatay waxay aad 22 sano laakiin waa la bedelay 2025 la bedelay markaan baaray waxa loo ogol yahay 20 jir marka qofka dhalinyarada 18 jir hadduu ku qaato shortcut visa 2 sano oo Fahrenheit ah ama way aragnimo ah ayaa laga rabaa horta taksiga marka 20 jir noqotid waxa lagu ogol yahay taksina wadi kartid 2 sano waxa laga rabaa inaad islaalisid oo laysanka aan laga qaadin dhibaato kalena aadan la kulmin oo nadiif aad tahay ka bacdi aad taksi foreign like tamaqoon codsanaysaa asagii waajibaadkiisana kulanka xigo ayaan idin soo gudbin doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wixii fikrada aad qabtid hoos noogu reeb